dhammaantiin waa ku wada mahadsantihiin inaad kasoo qayb gashaan soo ajiibtaan dacwadeena. Somali Environmental Conservation waxaan rabaa inaan ka hadlo change ku maado ama isbedel ku maado cimilada iyo cimilada waxyaabaha wasaqeeya ama ka dhigo pollution ka dhigo deegaanada marka la environment marka la deegaanka ma saameeyo oo kaliya environment-ga wuxuu saameeyaa beeraha saameeyaa wuxuu saameeyaa daaqo saameeyaa waxa arkay dhul oo muddo sanado ka hor ahay dhul daaqeed ama dhulkan loo range-iska oo waxa arkay after 5 years ama 2 sano gudahooda si dramatically isku bedeleen oo noqdeen dhul aan wax lagu beeri karin waxaan keenaa waxay tahay environmental change oo ku imaaday dhulka ku imaaday deegaanka ku imaaday taas oo macna saameynayso dunyada oo saabtiin xoolaha waxay daaqaan cawska daaqaan hadii marka cawskii la waayo oo ku dhaco guuraan ku dhaco iyo hadii maxaa la lahaa dadkii oo beerleyda ay soo barkacaan deegaanka isbedel awgeed change ku dhaco labadaba waxay leedahay dhibaato leedahay waxaana sabaruntii isbedelada cimilada oo ah climate change oo qayb ka qaadan taada ka warqabtaan tusaale waxaan ku filan wadanka hadda joogno kala Soomaaliya waa ogtiin xilliyeedii ay jireen roobaha in oo xoomood inuu dib u soo dhacay waxaana qayb kamid waxyaabaha oo hadda oo walwal ku haya caalamka inuu dhaco macnaha climate change waxa la yaabaa wadamo fara badan oo kuleel ahaa jiray inuu ka dhaco macnaha qabow wadamo qabow ahay oo roobku jireen inuu ahaa marka hadii la dhaho marka environment markii aan dib u soo laabto hadda waxyaabaha hadda issue hadda oo qaybtaan oo am teamka oo ah air pollution runtii environmental pollution markii waxa loo qaybiyaa saddex nooc koowaad oo ah land pollution ama landiga oo waxa ku xigo water pollution kan saddexaad oo ah air pollution hadii aan ka bilaabo marka water pollution ka bilaabo waxyaabaha wasaqeeyo biyaha waxa kamid ah industrialka ama shirkadaha oo industrial koobanka isticmaalo biyo isticmaalo in biyo wasaqeysan oo aan lahayn meel kale macnaha lagu soo furo in lagu soo daadiyo deegaanka lagu soo daadiyo taas waxa ka dhalan karta marka in dadka ay ka qaadaan ama dadka deegaanka ay ka qaadaan cudur ay ka qaadaan oo isku jirto maxaa la lahaa dadka inay malaria ku dhacdo kale typhoid ku dhaco kale inay biyo keenaan oo kale biyo wasaqeysanay biyahaasna waxa ka yimaadaan laba nooc oo ah nooc la og yahay origin ka yimaadeen oo aan nooca sheegayna oo ka yimaadeen industrialka iyo beeraha saabtiin beeraha waxay isticmaalaan fertilizer ayadana macnaha waxay kamid tahay waxyaabaha oo deegaanka oo shaqeey kamid tahay nooca labaad waxa waa nooca control kadin oo markoo oo roobka kale ama markay fatahaad imaadaan oo kale biyaha soo qulqula ee xaafadaha soo gala ayagana waxa waaye nooc kamid ah noocyada aan control kadin kuwaas oo saameyn ku leh biyaha hadii aan u maano qaybtan oo air pollution-ka oo hadda oo topigeeda ay tahay runtii wadamo fara badan oo caalam kamid ah waxa problem ku hayo air pollution waliba wadamada hadda hormaray ma qaadlaayo wadamada oo hadda oo under development ah badanaa waxa saameyn ku leeyahay waxay tahay wadamada oo hormaray waxaana keenaa waxay tahay waa industrialka marka wadanka aad u farbato waxa lagu yaqaanaa waxa kordhayo industrialka soo industrialkaas waxa soo bulshadeenayaan qeyc fara badan qeycaas oo laga yaabo markay hawada gar oo kaliya inuu saameeyay kaliya in oo noqdo kale acid rain aad maqasheen oo wadamada qaar ku doo ah in acid rain u baado oo qofkii ama qofka marka uu ku doo roobkaas oo kale xanuunsado ama kansar ka qaado waxa kale oo kamid ah in dhulkii lagu suubiyo xaalufin ama dhirta oo kale in la gubo dhirta la jaro dhuxul laga suubiyo ama kor la suubiyo ayadana waxay keenay waxyaabaha oo waxa laha keenayo in deegaanka oo noqdo deegaan oo macnaha oo dhirta macnaha lagu xayo soo si marka anaga dhamaanteen anagu faa'iideysanayno maalintan oo qurux badan si aan u badbaadino deegaanka waxa u baahanahay in aan ka bilaawno public awareness ka bilaawno xaafadaha inaan lagu shubin guriga iridooda waxyaabo wasaqda ah inaan geed la jarin in biyaha wasaqda ay ka imaado beeraha iyo factory-ga meelaha oo warshadaha ka imaadaan in lagu suubiyo control lagu suubiyo iyo ugu yaraan qofka intuu lifetime-kiisa oo noolyahay in oo abuuro un dhir abuuro ama deegaanka la leeyo ama green la suubiyo si loo hortago maxaa la lahaa isbedelada cimilada iyo problemka ay leeyihiin marka intaas aan rabaa inaan soo koobo anagu soo aysanaa munaasabadaas marka waa in salaama dhamaantiina mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi